kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad daawan doontaana waxaa qayb ka noqonaya Cabdiraxmaan Ciro oo qorsheeyay toogashada jaajuusiintii lagu qabtay Hargeysa ee Djibouti taabacsana amar culus oo uu soo saaray Djibouti oo kiis culus gudbisay dacwadna qaramada midoobay la wadaagtay xogtii ugu dambeysay Ciro oo heegan geliyay ciidanka Somaliland maxaa ka socda gudaha magaalada Hargeysa iyo xabsiyadii ku yaalay xaaladihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyadaasi socda wararka la xiriira Muqdisho oo xaalkeedu uu yahay mid allow sahla Sani Cabdulle iyo ciidamo taabacsan oo lagu arkay agagaarka guriga Shariif Sheekh Axmed geeli 22 farmaajo lagu bixiyay oo mar kale Xasan Sheekh loo adeegsanayo haddaba muxuu yahay dardargelinta mucaaradka qorshahan ay wadaan dani oo afka furtay mucaaradkana ku cadaadinaya inaysan baajin dibadbaxa filla Soomaaliya oo wada qorshihii ugu dambeeyay ee looga hortegayo iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka wixii nagu soo kordha iyo akhbaaraad kale ayaa daawan doontaan balse marka hore si aan faafahinta u guda galno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share garayso like saarta meel fog gaarsii qayb ka noqo saaxiibada inagu xiran ee hela xogaha xasaasiga ah iyo warbixinada halkan aynu ku soo gudbino adiga oo rukumanaya barteena YouTube channel sidoo kale fura gambaleelka digniinta aragtidadana qaybta hoose faalada ama commentiga inoogu reeb waa hagaaga aynu ku bilowna ee waa 3 bisha June habeenimo 4 hadii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dulmarka aad ku daawateen adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada ganacsi adigii ubadkaaga si sahlan ku barta quraanka kariimka markazul ihsaan online waxay diyaar la tahay barashada quraanka kariimka iyo shariicada islaamka 24 saac markaskan waxaa diyaar idinkugu ah macallimiin isugu jira rag iyo dumar xeel dheerayaal ay madrasadooda ka aflaxeen arday fara badan oo ku sugan gudaha dalka iyo dibadiisa si aad uga faa'iideysato fursadan qaaliga ah fadlan la xiriir lambarada shaashada kaga muuqda Somaliland hadii aynu ku bilowno Ciro ayaa diyaariyay qorshaha toogashada xubno ku eedeysnaa jaajuusnimo oo ay Somaliland gacanta ku dhigtay xilli ay wadeen dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo lagu tilmaamay inay ahaayeen talaabooyin abuuray xaaladihii ugu dambeeyay oo cabsi badan la xiriirtay dhaqdhaqaaqyadan waxay ahaayeen kuwo ay wadeen dhowrkii maalin ee la soo dhaafay dhinacyadani waxaana ay dardargeliyeen in mar kale loo qaadayo talaabooyinkii ugu dambeeyay iyada oo si xasaasi ah ay markaasi xiriirka ugu jireen Djibouti horey Somaliland mar kale se waxaa hadda la qaaday talaabooyin u muuqanaya in si degdeg ah Ciro uu ku soo afjarayo jaajuusiinta Djibouti ee gacanta lagu hayay waqtiyadii ugu dambeeyay iyada oo ay mar kale amarkan culus qaadanayaan ciidamada Somaliland waxaa talaabadani lagu tilmaamay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee maalmahani Somaliland ay qorsheyso iyada oo ay u muuqanayso in la dardargelinayo dhacdooyinka qaarkood iyo qorshayaasha xasaasiga ah oo arrinkan ku saabsan waxaa tani ay u muuqataa in la dardargelin doono sidoo kale talaabadan oo uu Ciro waday maalmihii ugu dambeeyay oo la xiriirta dhacdooyinka sidoo kale talaabooyinka hubeysan ee looga hortegayo rabshadaha iyo Djibouti jabhadihii ay taabacsaneed oo dhaqdhaqaaqyadoodu ay xooganaayeen waqtiyadii ugu dambeeyay haddana loo arkayo mid ka mid ah fursadaha looga fursan karo in looga hortago Djibouti waxa ay wajahaysay cadaadis xoog leh oo ku aadan dacwado ay ka gudbisay Somaliland iyo sidoo kale xubno laga qabqabtay taasi oo abuurtay in cabsi badani ay jirto talaabooyinkana ay ahaayeen kuwo si kama dambaysa ama si dardar leh loo qaadayay marba marka ka dambeysa tani waxa ay muujinaysaa talaabadii ugu dambeysay ee Ciro uu amrayo in la diyaariyo ciidankii toogan lahaa jaajuusiintii Djibouti ee gacanta lagu dhigay kuwa oo ay toogashadeedu u diyaarsan yihiin ciidankii ugu badnaa oo markan Ciro uu u diyaariyay sidii ay u soo afjari lahaayeen talaabooyinkan soo jiitamayay waqtiyadii ugu dambeeyay waxaana ay hadda u muuqanaysaa sidoo kale in loo qaadayo talaabo aad culus oo arrinkan ku gadaaman waqtiyadii ugu dambeeyana ay dhinacyadu ka shaqeynayeen sidii loo dardargelin lahaa
waxaa marka laga tago in toogashadani la dardargelinayo, Ciro uu geliyey heegan buuxa ciidanka Somaliland si ay uga tagaan ama uga hortagaan qorshe kasta oo duulaan mar kale rogaal celin ah Jabuuti iyo jabhadaha ay taabacsan tahayba ugu qaadi karaan gudaha Somaliland, iyada oo dhaqdhaqaaqyada ay wadeen la ogaaday inay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa oo khatar iyo halis badan xambaarsanaa, waxaana ciidanka ay xabsiyada ku gureen horay dhowr iyo 20 qof oo hadda intoodii ugu badneed lagu helay kiisaska kadib markii maxkamada la geeyey. waxaa markaasi tallaabooyinkan ay noqdeen kuwo abuuray xaaladihii ugu dambeeyey oo khatar badan ay ka dhalatay, sidoo kalena hadda u muuqanaysa in la qaadayo tallaabooyinkii ugu dambeeyey oo dhacdooyinka xasaasiga ah iyo arrimaha ku gadaaman tallaabadan la qaadayo iyo qorshaha markaasi Somaliland u degsan hadda intaba in ay tahay mid sii xoojinaysa xaaladihii ugu dambeeyey. go-aanka kama dambaysta ah ee la gaarayase waxa uu noqon doonaa mid taaban doona dhinacyo badan, waxaana Somaliland hadda ay ka go-an tahay qaadista tallaabadii ugu dambeysay oo ay uga yaabinayaan Jabuuti iyo sidoo kale dhinacyadii ay taabacsanaayeen. dhinaca Jabuuti waxa ay dhankoodu gudbiyeen dacwad iyo kiisas culus oo loo gudbiyey qaramada midoobe iyo dowladaha taageersan Somaliland oo ay dacwadaasi ku socoto, iyada oo midowga Afrika iyo sidoo kale midowga Yurub, urur goboleedka IGAD, qaramada midoobe iyo dhinacyo kaleba loo gudbiyey arrinkaasi oo xuquuqda aadanaha ay ku tilmaameen Jabuuti in markaasi Somaliland iyo hoggaankeedu ay ku xadgudbeen, taasi oo cabsi badan hadda sii abuureysa, tallaabooyinkana ka dhigay kuwa ku sii adkeynaya dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya ee arrinkan la xiriira, ayaana haddana waxay yihiin mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa in laga gudbay oo marxaladahani ay yihiin kuwo soo jiitamayay waqtiyadii ugu dambeeyey. tallaabooyinka la qaaday ayaase sii adkeeyey xaalka siyaasadeed, dhacdooyinkii taagnaa iyo dhaqdhaqaaqyada guud ee jiray waqtiyadii ugu dambeeyey. markana dhinaca kale haddii aynu eegno magaalada Muqdisho iyo dhaqdhaqaaqyada caawa ka socda Muqdisho si guud waxaa hadda uga socda tallaabooyin ciidan iyo dhaqdhaqaaqyo xoog leh, waxaana ay mar kale abuurmay xaaladihii ugu dambeeyey oo cabsi badan laga qabo in uu qarxo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo garabka mucaaradka. Mirnayo oo ah aagii dagaal ee farmaajo hore loogu bixiyey waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo aad xasaasi u ah, waxaana ay abuurtay in walaac badan laga qabo in markaasi ay tallaabooyinkani muujiyaan xaaladihii ugu dambeeyey oo la xiriira aaggaasi dagaal ee dowladda Soomaaliya ku furmay. Mirnayo waxaa la geeyey geel kaasi oo abuuray cabsi badan, sidoo kalena keenay in filla Soomaaliya iyo sidoo kale aagga Mirnayo intaba ay yihiin kuwo hadda ishaya. mucaaradka ayaa geelkii ugu horeeyey waxaa loogu geeyey Mirnayo guriga Shariif hadda uu ka degan yahay. odayaasha dhaqanka beesha Agoonyar Gaabane oo uu ka soo jeeda madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed ayaa geelkii ugu horeeyey u geeyey mucaaradka, kuwaasi oo bilaabay dhaqdhaqaaqyo culus iyo abaabul ku aadan dibadbaxa ay iclaamiyeen 4 Juun oo biri ku beegan. tallaabooyinkii ugu dambeeyana hadda loo qaaday. odayaasha oo tagay guriga uu Shariif ka degay Mirnayo ayaa ku wareejiyey neef geela oo hordhac u ah xoolo nool oo ilaa iyo caawa loo geyn doono mucaaradka, sida ay inoo sheegeen ila wareedyo xilkasa. sidoo kale odayaasha Agoonyar Gaabane ayaa kulan gaar ah la yeeshay Shariif Sheekh Axmed oo hayb ahaan ay isxigaan, wuxuuna ujeed ku ahaa salaan iyo kala warqaadasho la sheegay in Shariif lagu difaacayo. waxaa xogaha la helayo ay muujinayaan in mucaaradku ay si weyn u diidan yihiin tallaabooyinka dowladda. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in xubnaha kale ee mucaaradka ay iyaguna iskala qaybin doonaan xaafadaha magaalada Muqdisho sida Saybiano iyo meelo kale oo ka mid ah bartamaha caasimadda, iyada oo ujeedku yahay isku diyaarinta dibadbaxa ay mucaaradku iclaamiyeen 4 bisha Juun
oo maalinta berito ku beegan, kaasi oo lagu diidan yahay muddo kororsiga halka sano ah ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo barakicinta qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho oo dibadbaxayaashan la socda. arrintan ayaa muuqata mid ay mucaaradka ku aasaasayaan badbaado cusub si la mid ah badbaadadii qaran ee lagu wajahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi oo geel badan lagu wareejiyay xilligaasi maadaama ciidamo badan ay ka dhex abaabuleen magaalada Muqdisho. lama oga sida ay hadda wax noqon doonaan, waxaase laga warsugayaa halka ay ku dambeyn doonto xiisada labada dhinac oo salka ku haysa muran ka dhashay hanaanka doorashooyinka iyo wax ka bedelka dastuurka oo ah dooda ugu weyn ee taagnaa oo arrinkan keenay iyo barakicin ay sheegeen mucaaradku in shacabka Muqdisho lagu sameeyay. marka laga soo tago intaasi iyo aaga Miranaayo, dhinaca kale agaarka madaxtooyada Soomaaliya waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay. ciidamo gaar ah oo ka tirsan kuwa ilaalada madaxtooyada ayaana u soo daatay aaga guriga uu degan yahay Xasan Cali Kheyre. cabsi badan ayaana halkaasi ka jirta, ciidamada ayaana lagu arkayaa Tirabeela halkaasi. waxaa maanta gaaray wafdi ka socday ama guddi dhexdhexaadina oo ka socday dowladda si gaar ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ugu diray Xasan Cali Kheyre, waxaana wafdigaasi ay ahaayeen senator Dagdheer iyo sidoo kale xildhibaan Dhegey Geelle oo labaduba ay markaasi dowladda wakiil ka ahaayeen, iyaga oo dhexdhexaadan u socda. Xasan Cali Kheyrena ugu tagay in uu ka guuro aaga madaxtooyada Soomaaliya oo dibadbax uu ka diyaarinayo, dowladuna aysan marnaba ogoleen in difaac laga dhigto agaarka madaxtooyada oo uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in ay ciidamada ku sugan amar u qabaan in aan loo soo dhawaan karin, taasi oo ka dhigan mid xilligan sii adkeynaysa xaalka siyaasadeed, cabsi badanna hadda wajihinaysa dhinacyada ishaya. waxa ay u muuqataa sidoo kale in tallaabadani ay tahay tii ugu dambeysay oo cabsi xoogan keentay, dardar gelinaysana sidoo kale qorshayaasha ugu waaweyn ee arrimahan la xiriira, iyada oo aad looga baqanayo tallaabooyinka xasaasiga ah iyo xaaladaha siyaasadeed ee ku soo gadaanay waqtiyadii ugu dambeeyay. marxaladaha kala duwan ee hadda lala xiriirinayo dhinacyadan ayaa muujinaya in tallaabooyinkani ay yihiin kuwii ugu dambeeyay uguna waaweynaa ee loo qaadayo qorshaha kama dambaysta ah ee la xiriirta in la dardargeliyo dhacdooyin waaweyn oo ay mucaaradku ka sameeyaan magaalada Muqdisho. waxaana hadda socda oo diiradda la saaraya tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee dowladda Soomaaliya ay uga hortagayso qorshaha mucaaradka, iyada oo ciidan badan lagu arkayo qaybo ka mid ah caasimadda. waxaana socda dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa oo ay u muuqataba in mucaaradka iyo dowladdu ay isku hayaan. xilli hore oo subaxa hore ee beri ah ayaana la qorsheynayaa in mucaaradku ay bilaabaan in banaanbaxyadu ay u dareeraan oo ay aadaan. waxaana caawa qaybo ka mid ah caasimadda Muqdisho ka socda dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan iyo diyaar garow ciidan oo dowladda Soomaaliya ay wado, taasi oo ka dhigtay mid cabsida ku siyaadisay shacabkii caasimadda. mucaaradkana hadda ay ku wajahayaan tallaabooyin waaweyn oo aad u culus oo keenay in laga baqdin qabo in mar kale xaalku uu ka sii daro, iyada oo la joogo marxaladihii ugu dambeeyay ee sidoo kale u muuqanaya in la qaadayo tallaabooyin aad xasaasi u ah iyo dhaqdhaqaaqyo mar kale sidoo kale hadda loo qaaday. xogaha la helayo ayaa muujinaya in ay markaasi ay qaadayaan tallaabooyin gaar ah xubnaha mucaaradka, balse maalinta berita ah mucaaradka iyo dowladda ayaa kala bixi doona, waxaana dowladdu ay ka shaqeynaysaa in ay fashiliso banaanbaxa mucaaradka si la mid ah banaanbixii horey u fashilisay dowladdu 10kii bishii May. ugu dambeyntiina haddii aynu eegno wararka caalamka, Iiraan ayaa duqeyn ka geysatay dal Carbeed iyada oo khasaare xoogan uu ka dhashay. sida ay markaasi Iiraan laga soo xigtay, Iiraan ayaa sheegtay inay gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn ku weerartay saldhigyo iyo diyaarado qumaatiga u kaca oo Mareykanku leeyahay kuna yaala dal ka tirsan gobolka, taasi oo ku tilmaamtay argoosi.
Iran waxa ay sheegtay in weerarkaasi ay argoosi u fuliyeen. CENTCOM ayaa sheegtay in Tehran ay 2 gantaal ku riday Kuwait iyo 3 kale oo ku wajahan Bahrain, kuwaasi oo dhammaantoodba hawada ku kala jabay ama la qabtay ka hor inta aysan gaarin bartilmaameedkooda. Wakaaladda wararka ee dowladda Kuwait ayaa waxa ay maanta warisay in weerar diyaaradeed oo Iran ah iyo gantaalo lagu soo tuuray garoonka diyaaradaha ee Kuwait International Airport ay sababeen dhaawacyo iyo sidoo kale joojinta ama hakinta duulimaadyada, taasi oo ka dhigtay in weerar toos ah ay fuliyeen Iiraaniyiintu iyaga oo bartilmaameedsaday xarumo Mareykanku u lahaa. Guud ahaan daawadayaal, barnaamij wareedkeenina waa naga intaa.